No, I'm a good politician. ma tiktoogleyda ayaa mustaqbalka dhow dunida u talin doonta waa dhab inaad su-aashan laftigaagu isweydiin doonto marka aad muuqaalkan dhammaysato ha oo tani waa sheekada tiktokerka keliya ee ku jira mid ka mid a golayaasha baarlamaan ee dunideenna ugu weyn ninkan magaciisa la yidhaahdo Fidias isagoo 24 jir ah ayaa dhowaan loo doortay baarlamaanka midowga Yurub waa gole qaaradeed ay ka mid noqdaan dadka saameynta togan ku leh bulshada qaaradaas oo dhan ha yeeshee tiktokerkan oo xitaa iskuulka meel dhexe uga tegay ayaa noqday qofka ugu daada yar ee abid golahan ka mid noqday isweydiintu waa sidee ugu suurta gashay inuu xumin noqdo aan ku sheego ninkan caanka ka ah baraha YouTube iyo TikTok waxa uu yiri waxaan ka daalay siyaasiyiinta suudka iyo tayga weyn ee aan waxba ugu online dadka ay matalaan dabadeedna waxaan go'aansaday inaan matalaad daba gole geeyo damiciisa halka ka bilowdayna waxa uu geeysiiyay inuu noqdo qofka kaliya ee lagu doortay codka ugu badan ee uu abid ku soo baxo xubin baarlamaan midowga Yurub ah oo waxa Fidias u codaysay 70,000 oo qof ninkan ka soo jeeda jasiiradda Qobrus waxa ololihiisa doorashada uga baxday kaliya $5,000 halka kuwii xubintan kula tartamayay malaayiin kharash gareeyeen guulna ku waayeen docda kale waa xildhibaanka ugu shacabiyada badan baarlamaanka midowga Yurub oo meel kasta oo uu tago kumanaan taageerayaashiisa ah ayaa ku marxabeeya ogow taageeradani waxa ay ka timid muuqyadiisa madadaalada ah ee TikTok iyo YouTube waxaana uu Fidias aaminsan yahay in siyaasiyiinta koorarka iyo tayga weyn waagoodu dhammaad joogo kuwa oo uu ugu yeeray qaar calooshooda u shaqaysta ee aan ku shaqayn matalaadda bulsho ee la huwiyay mid kalena ogow daayirta kaliya uma codayn Fidias xitaa kuwan qaar da'doodu tiisa ku 3 jibaaranto ayaa isaga doortay waxayna sidoo kale la doonayaan inuu mar uun madaxweyne ama ra'iisul wasaarahooda noqdo Fidias waa askari hore oo ciidamada Navy-ga ahaa gaarigiisan raqiiska ah ayuu ku socdaa si caadi ah xeebta ayuu saqbarka ku jimicsadaa ama ku almiteeyaa halka uu leeyahay la taliye 65 sano jir ah iyo koox muuqaalada la samaysa isaga oo content creators ah tani waxayna tusaysaa sida uu mustaqbalka dhow u ekaan doono qaab nololeedka siyaasiyiinta jiilasha cusub ee tiktokleyda ogowna waxa ay doonayaan inay siyaasadda u yeelaan waxay ugu yeereen waji ka wanaagsan keeda haatan